عن حرير سميستي عن حرير سميستي إيجاد حسوسها حيراد إيقاد إيكن حريتي عن حرير سميستي عن حرير سميستي محالي وكاحري aan xogtaadiyo uraba xagaago he adba aha imaxiistide adba imaxiistide xubbigeenu sowkii goor hore xijaabtee lagu daray xawaalaha maxiskaan taloway maxiskaan taloway salaamatiin ubaatay maxamed maantiiba bulshaweynta reer burco waxaynu bilaaban doonaa session kale oo xiisihiisa wata halkan garabkayga waxa fadhida ayaan Axmed Caydiido ayaan kaaba aynu taqaaniin waan hubaa in badan oo idin kamid inay maansooyinkeedii iyo heesihii jacaylka ahaa booba ku dhaydaan waxaan si caawa doonayaa idinka iyo ayaan inaad si wacan isu waraysataan ayaan burco iyo gobolka Togdheer ku soo dhawow ugu horeyn waxaan doonayaa ayaan iyo inay reer burco inay isbartaan waa tuma ayaan Axmed Caydiid xagee ambaqaadkeedii ilaa dhalashadeedii ku soo kortay heerarkii aqooneed ee kala duwanaaya ay soo martay iyo ilaa iminka halka ay taagan tahay si kooban ay nooga waranto بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إله ما هذا سبحانه وتعالى ما تسوق كأني إن أكون كلنا مدرسة قرف البدن لأن يفتح قرف البدن إرهاب رعب ونقول ما هل علينا يا سيد قرف البدن يسوع دويين برنامج كان يوصل مرتقادين حل جنا هل كانوا فرديان بس أنا مسكوا ورئيسنا ما أنا مسكوا إذا سنة دمانتو أدبان إذا كم هل علينا يا سيدو كلا وحنا ما هل علينا يا لأن يرتب برنامج كان قرف البدن يسوع دبردي أنت أصلا لأن يرى أكل كلا كان تجوا بالله ذلك أبي يبغون هاتيهن وطلابة في عن وحيمديهن للرجالين يوم لقرب استاجو يجنا أدبان وما هل علينا يا بعض الصحافة يجنا مقالة قروح البدن يسوره قروح البدن يجوديان هل كانوا تاجن بان يجنا وما هل علينا يا صاحبة القيمة البدن حبلها شرفت البدن إنما ذا ومنافسين هل كان فرديا لما أنت محلي وما تنتهين أنت سجلت لجبو مره تاريخ دير أو كبحسن أنت برها بشدة جلس عطاء عن أحيل مقاعد ويان أحمد عيديد كابا فحقول شيء دولة ديجان كتوبيا ترور وحبرشة دي هالكيسان كسو قاتي هالكيسان كسو برباري أنت كسو لكاد وحبرشة تكسسري لا هرجع معدد أكو قاري بهذا هلابور كون بابكو أبتر صدا وأن سوغان تاس أن سوق بيا تعرف أنت كبحسن وأن سلاي هاي وادلة هاي متشرتو وأن كفر أحسن هاي عاوين هاي هرب اليوم. ويهي موضوع أيام عاوين وكبرت هاي وحوي سوغان تا إيو نرشوا سدا يفرقلوا سميان وحندونا يا أيام ويدينتو كوبانيا ويدياين النقطة أيام سوغان تا هذا مركز قيميسو كالمهيبي وبرنت هاي ما دنك جعيلك iyo inta aanu ka aragnay baad u badan tahay ma dhanka kale ee kaalmaha nolosha sida wadaniyada waanada waxsheega bal dacalkeeba ayaan u badan tahay oo caawa aan ku xasuusan doonaa baad isleedahay oo mahadsan tahay walaal xasan suugaanteedu waxay u badan tahay dhanka jacaylka jacaylkina noloshii ayuunbuu ka mid yahay marka dad badani waxay isweydiiyaanay dhahan ayaanay suugaantaadu jacayl bay u badan tahay waxaan dhahay jacaylku noloshu ka mid yahay oo maalin walba waxbaynu jeclaanaa maaha keliya hataynu qof jeclaano laakiin maradaad xidhan tahay haddaad suuqa tagtid waxaad ku soo iibsataa jacayl aad jeceshahay oo aad ka heshay cuntadaad maalin kasta cunto
waxaa laga yaabaa inaad cuntada jacayl aad jeceshahay aad u cunto markaa jacaylku nolosheeni oo dhan buu ka mid yahay markaa sidaasay suugaanteedu inta badan ay ugu badan tahay dhanka jacaylka dhanka noloshii kale oo dhan iyadana inteeda badan wixii markaa dareenkaygu uu dareemo way soo gudbiyaan way waxaan filayaa halkaa faham fiican inaynu ku haysano wixii dambe aynu ka weydiin doono laakiin isla jacaylka intaanan ka hadhin in badan baanu waxa weeye dee sugaantaada jacaylka aanu warhaynaa markaa ma la odhan karaa jacaylka iyo ayaan waxa jira dhufsanayaro ka dhexeeya dabcan haa oo aniga jacaylka wax badan baa naga dhexeeya dee suugaanteedana inta badan dadka arkaa ay ka dareemaan way waxaan doonayaa maansida koowaad ee caawa annaga iyo reer burco aad nala wadaagi doontaana inay noqoto maanso jacayla soo qaban maayo heesihii badnaaye aad taqaaneen laakiin waxaa jirtay tix erayadeeda ay ka mid ahaayeen muddaan kala durugsan oo midkeeba mid buu tabee miyaanad imanahayn bal tixdaa inaad noo mirtiriso ayaan jeclaan lahay aad baad mahadsan tahay dabcan sidaas la garanay maadaama waqtiguna uu gabaabsi yahay waxaanu ka gaadhsiin doonaa ilaa 4-5 maaso dhankiinana su-aalo baa ay codsadeen reer burco waxaa lahi su-aalo badan bay kuu hayaan su-aalahaas markayda soo gaadhaanna inaad khafiifi doontaan oo martida aad ka jirci doontaan maan insha allah rajaynayaa maasada walaalkay soo qabtay waxay ka turjumaysaa uun dareenka laba qof oo intay hal mar kulmeen kadibna mar dambe aan is arkin oo laakiin rajaynayna markaa is arkaan muddaan kala durugsanoo midkeenba mid buu tabee miyaanad imaanahayn mar kale aynaan kulmayn wuxuu maankaa jeclay habeenkiiyo maalintii malaa sawirtaa 1000 jeer adoo yimi maalin dhow intaad iga sii maqnayd muuqaaguna iga fogaa ee aan kala meel degnayn mooraalkaygaa xumaa mas-uulkaygaa tahoo muhiim baad ii tahee nolosha maalmaha adduun macaa farxad iigu joog haddii mawluhu qadaro mar uunbay iman inaad agtayda ka muuqatee dulqaad ii muuji badan waxaa aan soo xasuustay hees laga yaabo inaad badankiinu garanaysaan oo ay ku jirtay mar dhibsaday fogaantaada cidlada ka murugooday waa heesihii isla cidlada iyo ayaanay talow yaa inaga maqan baad is leedahay inta badan su-aalaha waxaan isku dayaa inaan si daacada uga jawaabo laakiin reer burco waxaa magac bay kuu bixinayaan haddaad si daacada uga jawaabto inta badan sidaynu ognahay baraha bulshadu wuxuu noqday meel inta badan dadku ku wada xidhiidhaan oo dadka badan hadda yacni laba qof oo foolka fool u wada sheekaystaa way yar tahay marka waxaan odhan karnaa saamaynta baraha bulshada keenta inuu qofku qof barto qofkuna uu noqdo qof ka fog xiriirka fogaanta haddaad baratana xiriirka dhawaanta umaba xiisaysidba intaasaan kaga baxaya way kamaan hadhin waxay jirtaa hadii inankii xeebta liido heesahani talow armay inankaa iyo hawshiisa ay ku og leeyihiin xasanow inanka xeebta liido wuxuu ahaa marla arag aan mar dambe la arkin qof wuxuu ahaa xata al'aan aanu caqliga suuraysan karin nooca u ekaa waxaan is idhahdaa anugu shaydaan buu ekaa madax marka ma la odhan karo suugaantan kala maqnaanshaha iyo qofkaasi xidhiidh bay leeyihiin maadaama qofkaasi uu ahaa qof hal mar aan arkay iga soo horbaxay wejigiisa xitaa xata al'aan jirkiisa iyo tallaabadiisaan xasuusta laakiin wejigiisa nooca u ekaa ma xasuusta waayahay sida ayaana idiin sheegtay su-aalaha markii hore waxaan doonayay inaan qarsado oo marka qaybaha dambe gebagabada aan idiin sheego laakiin qof walowba suugaanta intaad ka taqaana ayaan kaaba wixii weydiimaahee aad ka weydiinayso hoostaad kasii diyaarsan doontaa
maansada labaad ee aan doonayo inaynu ku xijinaa waxa weeye tixdii ahayd sirtu waa isqarintee quruxdaada hoosiyo adaa inta kale ku dari doona iyo bal si guud. waxay odhanaysaa tixdan waa tix kooban waxaanay ka turjumaysaa uun arrimaha ah in qorshayaashaada iyo hadafyada aad nolosha ka leedahay ay noqdaan wax kuu qarsoon ilamaa iyo ka midho dhalintooda mooyaane, maadaama ay caqabado badan iska jiraan oo marka laga yaabo inaad markaad sii sheegto hadafkaagii iyo waxaad nolosha ka damacsanayd inay imaan karto caqabado badan ay kaaga iman karaan. qarso guulahaagiyo wixii kuu qabsoomo qorshahaaga nololeed qofna ha uga sheekayn. sirtu waa isqarintee quruxdaada hoosiyo wixii aad ku tahay qani ishu yaanay kaa qaban. runtu way qadhaadhee qanci aadmi hays odhan. dadka qaar ha yaabee wixii kaa qalloocdaba aamusnaan ku qiimee. waxaad qaba isleedahay balse aanad qaabayn. sii qeex ma fiicnee sug qoraalka kuu dhigan. cajiib cajiib mar kale dhanka jacaylka waxaad moodaa in ay sugaan badanoo waxa weeye ayaanay leedahay ay mawduuca ku saabsan yihiin. waxaad si wacan u xasuusataan heesihii badnaayee jacaylka ahaa, ama ha ahaato xabsi caashiqle iyaan ka hayaa xil weyn oo xoghayntiisa aan ahay iyo kuwo baladano kanoo la mid ah. waxaan se doonayaa markan inaan wax kaa weydiiyo tix kale oo ayaamaha cararayo. bal tixdaa su-aalo dhowra baan kaa weydiin doonaa, laakiin bal iyadana noo raaci. waxay tahay maasay ahayd aan markaas uunaan anigu uga jeeday duco, walow iyadoo heesa laga yaabo inay dhowaan ay soo baxdo haddii ilaahay qadaro, oo fanaankeenna axmed aarshe uu qaaday. markaa waxay odhanaysaa maansadu cimriga dheeraynayo cabbaar ii yara istaag si aan camal suuban iyo cibaadada ugu degdego. ayaamaha cararayo aqbala codsigayga oo intaad cagta ii dhigtaan icaawiya qaybka hadhay. habeenka caraabayo carrada magaca iigu yeel cisiyo sharaftayda badi caqliga diin iigu kaab. qofkii i colaadiyow anigu ciilkooma qabo casiiska awoodda badan dartii baan ku cafiyey. waa dheeraad laakiin intaas uma kusoo koobaynaa maadaama su-aalo yahay noo hadheen tixa kale oo fara badan. marka la eego ayaanay tixdani si marka loo eego waa duco, si marka loo eegana qofku waxaa jira wax badanoo humuuma oo ku qarsoon. markaa ma odhan karnaa dhanka kale waxay noqon kartaa shiidaal qofku uu ugu shiidaad galo waxa uu doonayo iyo sida uu waxu doonayo. xidhiirkase iyada iyo tixdii ka horreysay ka dhaxayn karaa muxuu noqonayaa? dabcan nolosha sunnaha noloshay ka mid tahay qofku inuu noloshan aad arkayso uu yacni meel higsanayo, kadibna qofka waxaa gubaya ee ku jira yacni uu rabo inuu ka midho dhaliyo. waxaa laga yaabaa su-aalo badan bay ku keenayaan. waxaad odhanaysaa mararka qaar waa inaad ducaysato si aad hadafkaa u gaadho. mararka qaar markaa dhanba qofka hal-abuurka ah qofba dhan buu ka istaagayaa. mar adigii lahaa qarso guulahaagiyo wixii kuu qabsoomo qorshahaaga nololeed qofna ha uga sheekeen adigoo naftaada la hadlaya. mar kalena waa adiga leh cimriga dheeraynayo cabbaari yara istaag si aan camal suuban iyo cibaadada ugu degdego. waxaad jeclaysanaysaa nolosha inaad meel fiican ka gaadhidood adduun iyo aakhiraba u shaqaysatid. markaa waxaad ilaahay ka baryaysaa in uu yacni cimriga kuu dheereeyo oo caafimaad iyo kugu gaadhsiiyo nabadqab si aad noloshaada inta hadafka aad leedahay aad uga midho dhaliso. wayhay taymku inuu gabaabsi yahay baan dareemayaa. laba su-aalood oo kale aan islahaa laakiin waan ka soconaynaa. mar dhow xaggiinaan soo jilleeci doonaayo waxaan idin siin doonaa kaalintii aad lahaydeen. ayaanay waxaa jirta tix odhanaysay waxba ruux dhibaato iyo dhafar iyo kubaday ciil ha isdhihin ka goosee gobonnimo kusii dhaaf. yacni si uun haddii cidi ay wax idiin kala gaadheen inaadan waxa weeye adigu kaga daba tegin, bal tixdaa iyo xogteeda wixii aada noogu biirin karayso.
maasadani waa maase dhiirigelin ah waxaanay ka turjumaysaa uun yacni inaanad qof dhibaato kuu geysaday aanad waxba ka goosan waxaana odhanaysaa ka dhaqaaq duleeyaha qalbigaaga dhaawaca boqolbaa ku dhowrtee qof ku dhibay ha xiisayn waxba ruux dhibaatiyo dhafar iyo ku baday ciil ha isdhihin ka goosee gobonnimo kusii dhaaf nabarrada la dhayalsaday ee boogta kugu dhigay dhakhtarradu ka quusteen qof ku dhayay ha sii dayn dhibse kaan ku doonayn dhaliil yaanu kaa helin waa dharaar adduunkiyo noqodheemaniyo luul dhiso nolol la raadiyo qayrkaa ka dheeree dhexda xidho itaalka guushaada dhaatee kuwa daminka kuu dhiga ama dheefta kula neceb inaad dhaafta mooye hoos ha uga soo dhicin talo kuu dhameeyey xayaatada hadheeliyin oo dhowrsanaanta iyo sharaf iyo ku dhima magac waayahay wax badan baa weli ii hadhay oo tixihii ayaana laakiin waxaan doonayaa inaan idinka idin yara imaado su-aalaha barhidi siiyo barhka kalena aynu dib isaga soo noqonno waxaan laba su-aalood baan idin siin doonaa midna xagga hablahaan siinaya midna xagga wiilasha waayo hablahaan ku horeynayaa inanta su-aal qabtaa gacanta ha taagto waxaan jecelahay shaakir iyo qolyahaasina inay iga yaro hor banneeyaanoo ay raalli ahaadaan gacanta taag anaa ku odhanaya markaas oo istaag ma farxiya lama filaan ba issoo maamushay waayo ilaahay awoodahaaga habeen wanaagsan raabirca waa salaamaya dhammaantiin marka hore ayaan uga mahad celinayaa waxaan ka mid ahay dadka ay qalbiyadooda daweyso waa ku faraxsanahay inaan nasiib u yeesho inaan ka mid noqdo taageerayaashaada intaa kadib su-aasha aan ku weydiinayaana waxay tahay horta xiriirka iyo balooga maxaa ka dhexeeya jacaylka iyo balooga xiriirka ka dhexeeya muxuu yahay dad badan oo isbaloogaa jiro oo dacwadoodu badan tahay waasin tahay iga qaad baloogtii waaye xagga wiilashaan usoo noqonayaa inamada ciddii weydiin haysaa gacanta ha taagto su'aal yara weydiinaya ayaan kaaba horta waxaan ka mid ahay dadka aadka ugu xidhan habeenadii xilliyada dambana iska sii dhegaystay qalbiyada iskaga dhayda gabayadeeda intaa ka bacdi ayaan kaaba markaan gabayadeeda dhegaystay inta badan waxaa iga muuqda inay ayaan kaabi waxaan sidhi tolob inay mar walba inaad jeclaato ama xalfada joogo ama badda liidaha joogo marka waxaan isweydiiyey talo ayaan kaabi ma xalfadii tagtay iyo meeshay tagta ma dooqa ka hawoorsana mid uba iskaga qabsataa assalaamu calaykum lix su-aalood baan idinku talagalay ma dhowaa intana waynu ka jawaabaynaa wixii kale ee iyadana way sheegi doonaa heesaha ama tixaha ay leedahay ayaan baan ku sii socon doonaa kabacdina markay tixdaa inoo dhammayso kabacdi markay tixdaa inoo dhammaysana wixii weydiimaabay inooga jawaabi doontaa tixda ma markaan dantayda iyo ku mashquulay dunideen ku dareemi waayaad isoo daydayaysaa tix la yidhaahda baa jirta ayaanay bal iyadana waxaan u malaynayaa inamadii wada aamusay su-aasha ka wada dhacay ninkaasi su-aasha usoo dhiibeen oo keliyaata ma markaa dantaydiyo ku mashquulay dunideen ku dareemi waayaa isoo daydayaysaa ma markaan dadaaleen dallacsiiyey ruuxdeen dacalkaaga baydhaan isoo daawanaysaa ma markaan ku daayeen ku soo doonan waayeen kaa jaray dubaa qaad iisoo durkaysaa ma markaan daryeelkiiyo danayntii ilaaweyn dadka dhinac ka raacaad isoo doorbidaysaa ma markaan naftaacada ku daabacay quluubteen doorteed jeclaadaad ma seyrtood dudaysaa waayahay su-aalihii intaynad ka jawaabin halkaa waxaad moodaa ayaan dee dadku markay dad isjecel yihiin ay kala cadhoodaan ismaslaxashadu wax meesha ku jiraan laakiin waxaad moodaa ayaanay ismaslaxashadii inaad meesha ka saartay arrinkaa maxaad ka leedahay xasan waa mahadsan tahay laba qof marka oo xiriir ka dhexeeyo
waa la iskhilaafayaa waa la isku dhacayaa waana la isku soo laabanayaa marka inta badan waxaan suugaantayda maslaxadda loogu ah qofkii markaan kala tagnaba way aragtaysaan isugu soo laabanaa marka dareenkaas ma hayo weli way dhici doontaa laakiin insha Allah inaa wax ka tiriyo walaashay farxiyo lama filaan aad bay u mahadsan tahay su'aasheedii haddii aan u galo waxay tiri xiriirka iyo maxaa ka dhaxeeya baloogta xiriirka iyo baloogta waxaa ka dhaxeeya inta badan laba qof oo isjecel baa jirto baloogaan ugu soo aaminsanahay qofna qof aanu rabin ma baloogo waa aniga sidaan aaminsanahay waayo qofkan oo linkiisa ku dhibaya muxuu kugu soo jawaabi waayaa ku dhibaysa waxaas oo dhan baad isweydiinaysaa marka qofku waxaad soonaysaa iska qari kadibna horta xiriirka taasaa ka dhaxaysa waa anigii maanso aan lahaa ahayd no ma hayna wallahi billahi baloogtu xal bay ahayd xanuun bi'iyay ahayd xasuustamin bay ahayd marka waxaan ka warramayo qof intuu baloog saaray wan caafimaad qabay inta baloogta ku jiray maalin ba sikadisa u arkay qofkii baloogta iga qaaday marka waan naxay saasay ku timi marka baloogtu xal bay ahayd xanuun bi'iyay ahayd xasuustamin bay ahayd si kale way yara xumeyd xanaaq badan bay lahayd xiisiyo timid bay lahayd dadaan kuga xaal ogeyn ayaan kugu xiijin jiray xogtaada si aan u helo xiriirka ku kaawacnaa jacaylkaaga xanibay xisaabtamay oo fikiray naftana xaal siiya jeer haddana xubi waa halkii xiskaad keligaa degneyd haddeer boqol baa ku xidhan ha yeeshee kuma xasilo su-aasha jawaabta intaasaan kaga gudbayaa farxiyo lama filaan walaalkaygu soo kaxaya su-aashii weydiiyey su-aal qosol laga hortii weydiiyey qof dooqo ka xumaaday horta wax kasta waa laga filan karaa caawadaas mar dhaweytoole anigii waxay ugu soo dhaceen aan idhi yarkaan baafiyeen boorama ka dayay beledkii raggiiyo bari baan ka helay marka wax walba waad filan kartaa waayahay linkaan beledkii raggiiyo bari laga helay waxaa laga yaabaa inuu meelaha fadhiyo hadduu doono anigaba ha ahaadeen ilaahay khayr ka dhig waayahay mar kale xaggiinaan u soo noqonayaa xagga wiilashaan ku horraynayaa cid soo aragta haddii jirto gacanta ha taagto nin safka horun baa laga taagaya xagga dambe maxaa ku dhacay waayo dhigaasaan waxay isiinaya gebiyahaan waxaan aad u salaamayaa martisharafta qiimaha badan ee haddan isugu timi waxaan sidoo kale mahad celinayaa martida gobollada kala duwan ka timi safarka inoo soo galay kolley ayaan su-aal baa weydiinayaayo in badanba waa la deydayey sacaa waan markaas ka helnay golahaasoo jawaabteeda way sugayaan ilaa ka dhigay ayaana waxaa jiray ayaama dhaweyto siistab ahaa walaalnimo oo hawlaha iyo ilmadiisu meeshagaraynayeen oo walaalkaygaa la hayay sheeke isbedeshada yahay waxaa jirta inamo badan waad soo meeshagaraysay oo walaalkii ahaa ma la odhan karaa sidii inadii hore sheegay inamo badan baa jiro oo walaalnimadii wax badan loo bedeli doono haddii ilahay ka dhigo maskaxdaydu kala baxaysa keliya oo wax badan baa iga soo socdaana iga qorshaysan dhanka hablahaan markan siinayaa haddaan xagga hore siiyey qolyaha dambaan siinayaa waaye xagga haddaba gacantayaa ka taagay waaye ino taalaa ka taagaysa yes السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waan salaamayaa madasha quruxda badan ee dhalinyarada sidoo kale waxaan salaamayaa walaasheen ayaan oo safar inooga soo gashay ilaa Hargeysa iyo dhalinyarada kale la socotayba ayaan waxaan weydiin lahaa aan u soo kacay waxa jirtay maan soo ahayd waxa aan niyeystaa anigoo nasiib iyo kugu helay naagtaadii soo furay inta xoogaan uga booda waxay ahayd naagtaadii soo furay ayaanay haddii aan kula kaftamo kulle maxagaasaad u socotaa ayaynu odhan karnaa waad mahadsantiin inamada iyo su-aal haya waaye niman halkaasi baa jiro dhinacii raggana aan fadhiin dhanka hablahana ku dulman ninka odayga ahee go-a shaalkaasita waaye hore u soo kac ninka go-aasita asalaamu calaykum aad baan dhammaantiin idiin salaamayaa
anigu su'aal ma hayo laakiin maanso ayaan ka codsanayaa inay igu luuqayso maansadaasoo ah ay ka mid tahay meeriskeedu jaliiloo ku daa maalmo waayahay inay fadhido oo wax la weydiiyey ay ka jawaabto way ku qasban tahay intaa hore ay nooga jawaabto waa mahadsantihiin hablaha si un baan isugu naxariisanaynaayo ma aqaano ragga caawa waxay iga damacsan yihiin waxaan ka jawaabayaa walaalkay Sakariya su'aal uu weydiiyey oo ka hadlaysay walaaltinimada buu dhahay hadda bariyahan dambe waxbaa ku hoos jira sida su'aashiisa ka muuqatay walaaltinimadu waa wax qurux badan waana wax qiimo badan rag iyo dumar baa qofka ay kala dhaxayso waa wax qofka maanta istaqaanaana walaaltinimo idinka dhaxayso qof aydan isaqoonin isku kaamid maaha isagu laakiin walaaltinimadii hablaha kama hadlayna walaaltinimadan nimadii habluhu ka hadlayay halka markaa marayay waxa igu soo dhacday maanse yar oo weer dhaweyd aan ka tirinayay walaalnimadaas oo ka sheekeynayay labada qof horto lab iyo dadka kala ah marka ama saaxiib yihiin ama ay walaaltinimo ka dhaxayso inta badan waxa laga yaabaa labada qof hadii ay isku sii dheeraadaan in dareenkaas walaaltinimadu isku isbedelo waayo labadan qof xaaladooda dhabtaabay markasta isla wadaagayaan waa isla hadlayaan qofka wax kasta uu sheegay waxa laga yaabaa qofka xiriirkeeda ka dhaxeeyo waxaan u sheegi karin baa qofka kale laga yaabaa inaad kala sheekaysato oo xaqiiqadaad ka wada hadashaan bini aadamkuna wuu iska jecel yahay qofka naxariista badan ee daacadda ah ee u dabacsan ee jecel ee mar walba ka soo war doona ee xaaladiisa la wadaaga ee waxaas oo dhan marka waa sababta bariyahan u maleynaa in looga gartay arrimahaas walaaltinimada ereero kooban baa igu soo dhacay oo ahaa walaalnimo dhaadhacday oo isfahan dheeraaday baa jacayl ugu dhaliyay oo dharaarahan ruuxda iyo qalbiga kuu soo dhowaa haddana kuma dhaca inaan kuu dhiibo xaqiiqado waxaan dib u diidayaa xiriirkeennii dhisnaa inuu dheedhiyo marqudha dhankaagana waan hubaa inuu dhabdhab kuu hayee sidaan uga dhuuntay baad ka dhowraysaa afkoo dhegteedu wax kaama maqan marka intaaskujeedinayaa su-aashii kale ahayd inantii weydiisay ahayd waxa aan niyeystaa anigoo nasiib iyo kugu helay naruuro nolol ila sameeyo naagtaada soo furay waxay tilma xaggaasaad u socotaa ilaah baa karta xagga loo socdo laakiin qof wanaagsan markaad barato oo naxariis badan oo ilaa waad qiimeynaysaa qof aan xaas lahayn markaad la sheekaysatay iyo qof xaas la farqiga u dhaxeeya marka qofkii aan xaaska lahaa uu ka dadaal bato qofkii aan xaaska lahayn waxaad soranaysaa markaa talow waad iska niyeysanaysaa qofkii soo furay oo waxaasoo wanaaga aan cid kale kula qaybsanood keligaa lahaatid marka dee qof wanaagsan oo naxariis badan oo gacan furan oo daanyeer odhan maaye maalmaha daanyeer waa kasoo horjeeda daanyeer odhan maaye yacni qof deeqsiya markaad baratidoo waxaasoo dhan kulmistay waad iska niyeysanaysaa inuu gabadhaa ka soo guuro marka waxaan leeyahay gabadhii nin noocaasa haysataay waa lagugu soo maqan yahay su-aal kalea jirtay oo walaalkaygaasi laba su-aalood uu israaciyey oo ahaa gobolkii kuugu xiisaha badnaa ama meeshii kuugu xiisaha badnayd ee aad yacni sii jeclaysatay waqtigu inuusan kaa dhammaanin gobolkaasi wuxuu ahaa gobolka baydhabo ama baydhabo jannaay sida la yidhaahdo oo aan tegay 2020 bay ahayd baan filayaa waqti yar baan joogay barnaamij baan sidan oo kale uga qayb galay runtii anoo jeclaysanaya dadkeeda iyo deegaankeeda iyo soo dhaweynteeda baan ka soo noqday dee burcana habeenun baan joogaayo waxaa laga yaabaa su-aashan habeen dambe lay weydiiyahay markuu barnaamijku xidhmaya ama marka sii tegayo laftirkeeda burcana waxaan rajaynayaa anoo jeclaysanaya inaan sii joogo inaan ka tegi doono iyadana su-aal kale inaan kaasi sii raaciyo ahayd gobolkeebaad ka guursanaysaa ilaah baa og waxaynu aan ogaan karna maaha marka caawa haddaan idhahdo gobolkaasa ka guursanayaa gruubkaygii waa lagu kala kacayaa meesha ayada marka waxaan leeyahay su-aasha isku soo haadka waxaa kaga baxayaa sidaan isleeyahay way u badan kartaa labaan soo qaadanaya marka labada gobol baan soo qaadanaya labada gobol beri ka maalin haddaad weydaan waa balansigii bay ka dhigan tahay inuu kusoo baxay shaxda
gobolka togdheer waa ku jiraa horta sidoo kale gobolka saddex ma ka dhigtaa baa iga haysa iyadana gobolka labaadna waxaan ka dhigaynaa haddii ilaahay idhaahdo salaxley gobolka saddexaadna guriceel marka waa inaad saddexdaas umaad ka dhex raadin doontaan kolley hadhow toole haddii ilaahay qadaro waxaa jirtay inan baa halka soo istaagtayadana waxay iga codsatay heestii ahayd jaliil oo gudaa maalmo ereyada waxaan filayaa mar hore ahayd inay ilaawiba waan filayaa waxay ahayd abidkay ku jari maayo jacaylkaaga qarin maayo jamashadaana dayin maayo way 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 waa jaaga aragiisa naftu way jeclaan layde dheera halkaad joogto way 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 waa jalle waan ku tabayaaye jalle waan ku tabayaaye jaliilow gudaha maalmo way 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 waan kala ilaabay waayahay mar kale dhankiina u soo noqonaya su-aalaha waa laydin kordhinaya intaad su-aal haysaan xagga hablaha ayaan u soo noqonayaa suga halkaasay inaan ilaa maanta gacanta ka taagaysa waay بسم الله الرحمن الرحيم ونيد السلامي لما ريب برعو iyo martidaba sida xasan idin sheegay martida laga soo casuumay hargeysa ayaan kamid ahay ayaan anaguna isfahminay hal su'aal baan weydiinaa ku adkayn maaye ayaanay mid alleeda waxa jirta waqtigan hadda jooga nin wanaagsan la waayay waxaan weerar ku qaadi warda xaashininkeeda waxaan ayaan weydiinayaa warda xaashininkeeda maxaa ku daba dhigayaanay ninka loo gacanta ka taagay way soo soco bismillaah assalaam ya dhamaan marti sharafta qiimaha leh sidoo kale abwaanada ayaan iyo xasan baan salaamaya ka hor intaanan su'aasha guda gelin waxaan jecelahay ayaan inaan mid iraahdo waxa jirtay waraysi aan filayo inuu ahaa waraysidii ugu dambeeyay oo lahaa horta habluhu dhinaca quruxda markay noqoto ragga maxay ku eegaan dadana aad ahayd de kolley aniga laftarkaygu ayaan ahaan marka madal aan tago yacni had iyo jeer ishaydu waxay u badan tahay inamada quruxda badan ee meesha ka soo qayb gala dee iminkana dhiiggaaga waxaan filayaa waxa fadhiya xasano walaada kolley xaggaasaan feedback insha allah taasaan ka heli doonaa su-aashaan jecelahay inaan ku weydiiyaa waxa weeyaan kolley waxaad masaafo badan dheer baad soo gashay oo hargeysaad ka timi oo waxaad joogtaa gobolkii ragga markaad halkan eegtana waxaa fadhiya rag iyo dumar maraha ay badan yihiinba caawa raggu marka waxaan jeclaan lahaa bal maanso ragga ka hadlaysa oo weliba aan ahayn maansooyinkaagii iminka dhowaan ugu badnaayee dhinaca maxaan ku dhahday had iyo jeer kirbaashka aan ahayn bal xagga ammaanta inaad wuxuun u biyaro baadho taasi waa codsi su-aal aan ku weydiinayaayo waxa weeyaan su-aashu ragga halkan fadhiya iminka aad arkayso tii ku jirtay maalinta aad lahayd waan eegaa had iyo jeer oo dhinaca indhahaygu waxay u badan yihiin had iyo jeer ragga markaan arka eegayo cabaaradana waxaan ka arkaya adigoo hablaha uun eegaye inamadii aad sheegtay aad tiri qurux badan yihiin xaggaas eegaan mideen kuuni kuma jiraan talo mise doonaa waxaan se doonayaa intaanay ayaa jawaabaha ayna siinin in yaroo kale wargelin oo barnaamijkeenna iyo sii socoshadiisa la xidhiidha ayaan u yeedhi doonaa malaa ayaan waynagu bateen maasha allah qoray buugga la magac baxay xabsi caashaq qisada buugga haddaan idiin yaro dul maro waa qiso dhaba oo ku dhacday mid ka mid ah askarta magaalada dina buugga markii aan qoritaankiisii ku jiray waxaa soo baxday heesta ay kaaba samaysay xabsi caashaq leeyaan ka hayaa xil weyn oo xoghayntiisa aan ah kadib maadaama magacii laygaga horreeyey
kaabaan la xidhiidho waxaan ka codsanay in magacii aad waa iyada in kasta iga weyn tahay inay magacii ii deyso magacii waxay ugu tiri qaado annaga waxaan ballan kaga qaaday qisadaas markay soo baxday buugga ugu horreeya inay noqoto qofka akhriya sidaa darteedna waan ugu siiyey buuggii maadaama uu haddeer soo baxay halayla soo dhaweeye markaa وحبسي جعيل كربرو وبوجه malaha jacaylada in yaroo cilmi boodhariya mooyaane inta kale haddaanu reer burcan nahay annagaa sheeganaynaa intaasun baa naga baxsatay inta cilmi boodhariya oo keliya aad baad mahadsantahay maxamed waa mahadsantihiin guntiga gabagabadii weeyaan labadii su-aalood ee u dambeeyey un baan isku dayi doonaa insha allahu tacaala inaan ka jawaabo su-aal walaashay amal gelin ayaa i weydiisay waa igumay adkaynin ilaahay khayra siiye waxay tidhi warda xaashi ninkeeda maxaa lagaa siiyaa warda xaashi ninkeedu waa nin wanaagsan horta wax wanaagsanna lama daayo ama qof wanaagsanna lama daayo marka wanaaggaas faraxa badan ee ka arkay unbaa warda xaashi ninkeeda daba dhigay haddaan u wanaagsanaan lahayn waxba kumaan darsadeenba su-aasha labaad inankii bay weydiiyey wuxuu yidhi maadaama aad waraysiga u dambeeyey aad quruxda iyo ku sheegaysay walaalkii xasan ayuu iska foodaynayay laakiin dadka madasha joogaan soo qaadanayaaye dee waa anigii lahaa markii dhaweytoolaba yarkan muddo baafiyeen waan ilaabay goloka fuul bay ahaydeen waan ka helay marka waxay ka dhigan tahay inaan dheero casoo ilka casoo qurux badan inay saaka uu buwaagta iibsanay ishaygaga dhacdo dibna umaan arkin dee intaa wuxuu sii raaciyey maadaama karbaash iyo daadis iyo waxyaabahaas ay u badnaayeen hawshaadu maase ammaana bal iyada isla keen maase waxaa jirta aan sameeyey 2000 iyo waxaan filayaa 8 bay ahayd iyadoo heesaaba la qaaday oo waxay ahayd waa maasooyinka odhan karo waa maasada ugu ammaanta malaade qof lagu ammaano aad xaddigii loogu talagalay xaddi ka badan aad ku ammaantay maasadaasaan aan idiin tirin doonaa kadibna waynu ismaaca salaameyn doonaa haddii la idhaahdo waxay odhanaysaa maasadani xaqlaha qalbiga iyo xiskow xaladda nolosha ifkow baraha xubbiga iyo cilmow xabiib naxariis lahow xulkaan helay ee yimow naftayda xanaaniyow xurmada igu qaabilow midkii dhaawaca xalow xidhiirsame lagu nastow jacayl dhaba xeeriyow farxadda xeradeediyow midkaan xushay een jeclow xaqdhowr lagu miisayow xumaan laga dhaariyow xaaraan laga dhowrayow kartiyo edab lagu xardhow xariir mar la keenayow xayaatada lagu degow xidiga ii daarmayow xadhigga rabbi xoojiyow xadiisyada loo dhigiyow xaqiiqada lagu korshow xalaal cuno loo ogyow salaada u xaadirow dantiisa u xiiqsanow dantiisa u xoogsadow guushiisa u xiiqsanow xishood lagu kaabayow xooggiyo maskaxdaydiyow xilliyo adag ii samrow midkaan xiisaynayow allow xaas kuu noqdaa allow xasan kuu dhalaa nolosha ku curtaa xanaan xamdiyo koriyaa ilwaad xafsiya raxma iyo ammaan marka ammaantiina intaasay igaga dhan tahay waan idinka mahad celinayaa sida quruxda badan ee aad waqtigaas oo dhan u joogteen inaad dhageysataan allah idin sharfo insha Allah burcamar baa si weyn u iman doonaa oo aynu bandhig weyn qabsan doonaa insha Allah tacaala aad baa mahadsantihiin waan idin jeclahay allah idin sharfo sida aad ii sharafteen wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh